Assalaamu calaykum. Sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay dhaqtaradan ayaa ahaa mid ay hawshu aad ugu baahan tahay xilliyadii koronihii. Markii dambe waxay go'aansadeen in ay tagaan fasax oo ay ka raystaan qadan faraha badan la ay hayaan. Markii dambena waxa ay soo saartay meelahay tagi lahaayeen maalintaas. Meelahaasna waxaa ka mid ahayd inay tagaan badda siday ugaar soo raystaan shaqada badan. Gabadh baa markii dambe waxay ku tiri bad aad iyo aad bay u noqon doontaa mashquulay ka waran haddii aan kaymaha tagno. Markii dambe waa la isku wada waafaqay. Gabadhiina waxay wada diyaarsadeen qof walba oo ka mid ah inay meesha tagaan oo meesha isku raaceen. Gabadhan baana u soo jeedisay inay iska tagaan kaymaha waayo cidna ma joogto. Kaymuhuna waa meelo waxyaabo fara badan laga soo faa'iidayo hawo fiicanna leh. Buuro fara badan iyo xayawaano aad u fara badanna waxay aad u xiiseynayeen in ay soo arkaan. Maalintii dambe waxay go'aansadeen halkay iskugu iman lahaayeen iyo xilligay baxayaan iyo waxyaabaha loo baahan yahay inuu qof walba soo qaado. Farxadna qof walba waa uu seexan kari waayey. Aroortii dambe way soo wada mareen waxayna u kaceen halkaa iyo buurihii. In yar kadib markay aheyd madoobaanaysa ay meeshii soo gaareen, hoteelkii bayna ku soo degeen. Hoteelkaasina aad buu u qurux badnaa, laakiin dadka looma ogolayn inay habeenka u baxaan buuraha. Labadoodu laakiin waa ay diideen oo ninkii meesha joogay ayaa ku yiri lama baxayo ee waa la joogayaa ee fadhiya. Habeen markii gaadhana lama ogolaa inaanu baxno oo hoteelka idaan ka fasaxno. Laakiin waan diidnay bay tiri oo si walba uu nagu yiri waxaanu ka oranay waynu baxaynaa. Waanu soo baxnay. Waxaanu meeshan u imanay waxay ahayd inaan habeenka aan alaabo ku dhisano kaynta oon aragno kaynta quruxdeeda. Qof walbana hawl ayaa loo dhisay. Qole waxaa lagu yiri taandhada dhisa, qolana soo kuleymaysta, inakan kalena waxaa lagu yiri xaabadda soo gur adiguna oo meesha dhan han ka wada dhigno meel ay leeyihiin dad family ah. Xaabadii buu isaguna soo guray wuxuu ku yiri aniguna xaabada ayaa soo guraya. Labadan qofna waxay ahaayeen ninkan iyo natanna laba isqaba waxayna yiraahdeen anigu waxaa sii karinaya cuntada xaabada soo ururi isaguna guryaha sii dhigo. Gabadhanna waxay iskabinaysay diyaarinaysay cuntada ninkuna wuxuu diyaarinayay guryihii la seexanayay. Gabdhaha kalena waxay meesha ka gurayeen waxyaabihii qashinka biyana waa ay ku caawinayeen dadka. Ilaa markii dambe ay gurigii dhisteen ay dhammaysteen. Markii dambena waxay bilaabeen inay sheekaystaan markay dhergeen ay guryihiina dhisteen. Dad digniina oo baxaya. Ninkii ayaa idhi gabadha qabay ka waran hadduu adkaasi leeyahay libaax ayaa soo socda. Markaasuu yidhi soo nagaysana waxyaabahan ku dagaaltamanay. Markaasay ku tidhi ma laga yaabaa in laynoo yeerayo innaga sidan dib u soo noqono. Gabadhii baa ku tidhi waxba laynooma yeeraye han iska fadhino. Haabay ku tidhi waxaa laga yaabaa in wax kale la raadinaya inaan lubnadina moodayo aan fadhino. Markaasuu ku yidhi han iska fadhinee sheekadeennii inoo sii wada. Sheekadeennina halka ayaan ka sii wadanay. Laakiin codku marba marka ka sii dambaysa waa uu sii weynaanayay. Anaguna waxaan isku dhaafinaynay sheekada aynu sheekaysanno. Ilaa markii dambe kaynta noo dhow ay dhaqdhaqaaqday ay wada socod noqotay. Anaguna waan ka wada cabsoonay kayntiina waanu eegnay. Laakiin waxba waa aan ka weynay. Codkiina waa uu qarsoomay. Markii dambe ayana codkii raadinay. Codkiina waa aan weynay. Marka codkii weynay ayaa markii dambe waxay tiri gabadh naga midi madaa waxani waa xayawaanay noqonay waxa samaysiin inoo soo diyaariya alaabtii oo dhan. Ninkii ayaa yidhi waxaan ma arkayo laakiin kaana aan wax inoo diyaariye aan hadhow tolay iskaga calayna xayawaanka ina soo wajahaya. Waran hadday xayawaanadu badan yihiin bilaa ay badan yihiin soo dhawayso waxyaabahaad ku dilaysid. Markii dambena waa aan soo dhawaystay oo waxaan eeganay halkuu ka soo baxayay codku maanta oo dhan. Waxaan islahay maxaa kaaga soo baxaya. Ilaa markii dambe inakii haystay alaabtii wax lagu dilayay lagu qabtay xabad oo lagu yiri ayar adigoon hadlin dhulka dhig waxa aasiyatid. Markii dambena tuug ayaa nagu hareersamtay dhammaantayadaba. Waanu qaylqaylinay laakiin markii dambe waxay nagu yiraahdeen hadday aad hadalka sii weydiin waan indilaynaa. Anaguna waxaan ku lahayn maxaa aad naga rabtiin maxaanad nagu haysatiin. Anagu meeshan dalxiis baan u imanay ee didmo umaanu iman. Anaguba jeel ayaan ka soo baxsanay waxaana rabnaa dad nadaafiyo meelahaan rabno oo askartan aan iskaga dhex qarino na raadinayse jooga
oo hadlayna ilaa intay nadul marayso. Hadalka badanna yareeya ilaa intay aayar nadul maraysana ha hadlina. Waxaanad bakhtiisiin dabkana shidanaysiin. Dabkiina mid ka mid ayaa bakhtiyey, halkii baanan ku aamusnayn ilaa intay nadul martay diyaaraddii iyaga raadinaysay oo codkaygiina uu ka aamusay meeshana ay iskaga tagtay. Markay diyaaraddii aamustay ayaa ninkii tuugga ahaa wuxuu ku yidhi, haddaba wataa diyaaraddii aamustay waxaad samaysiin meeshaad ka timaadeen nageeya oo nugu qariya. Haddii kale dhammaantiinba xabadda ayaa madaxayn ka wada jari doonaa, xabadna noolaan mayso. Markaasaad ku oranay anagu dalxiisba meesha ku joognaa, huteel baanaan ku jirnay. Huteelkana ma geyn karayne. Maxaa aan samaynaa? Maantoo dhan maanin la soconaa oo maanin la daallaa. Haawaad nala daalaysiin ilaa intan ka baxayno, bikayntan ay askartuna nawaayayaan. Ninkii laakiin tuuggii waxa uu yidhi, waa inaad meel i geysiin oo meeshan iga saartiin. Haddii kale mid nooli meeshan kama baxayo, dhammaantiin farahayga ayaa aad ku dhimanaysiin, xabadna inkama harayso. Markii dambe aragtay gabadh ka midii inay meeshu sii adkaanayso, dadkana la weeldilayo, ayaa waxay ku tiri, markan kaynta sii dhex socday, waxaan soo arkay god, aynama shaqad kaa tagne oo annagana hana dilin, adiguna kaama gagahad, annaguna hana iska soconno oo aan iska tagno waddankayagii, dibna aan ugu noqonno. Adiguna godkaa iska gal, askartuna ma oga, waayo waa god, markii dhaweydin aan arkay oo meel dheer ku yaala. Markaasuu ku yidhi, haddaba maxaa aad qabanaysiin? Meeshan ka dhaqaaqa, intaynay soo iman, askartii lugaynaysay oo inayna arag oo godka ayna geeya, dhammaantiinna iyo hor dhaqaaqa. Sidii baan isku hor dhaqaaqnay, annagoo dhaqaaq joogsanayna, waayo diyaaraddii ayaana raadinaysa, kolna isqarinayna, kolna kacayna sidayna noo arag. In fara badan ayaanan kaymaha dhex lugaynanay, annagoo aayar u socona. Isagu waxau ahaa kan ugu dambeeya, ninkan tuugga ugu sarreeya, dhabarkiisuna aad buu u xanuunayay, waayo waxaa loo malaynayay inuu ka soo dhacay dayrkii meeshii uu joogay ee jeelka ahayd. Haddana ma uu muujinay in uu xanuunsanayo, dadka uma uu muujinay. Markaan in fara badan soconay buu yidhi, aaway, godkanaad ii sheegaysiin, ma waxaad rabtiin inaad askarta ii geysiin, mid idinka mida ma baxayo. Markaasay ku tidhi, godku waa uu dheer yahay ee soo socda, waanu ku geynanay ee hana dilin, anaana arkay, dadkan kale ma ay arag, aanaa ku geynaya. Mid ka mida oo xabad askari kaga dhacday, dhiig fara badan ayaa ka baxay, waa uuna dabahay oo dhulka ayuu ku dhacay. Markii dambe waa uu hadli waayey, mid iyaga ka mida ayaana dul istaagay. Kii kalena wuxuu doonayay inuu nafta kaga jaro, waayo ma uu hayn wax dawaa. Wuxuu ku yidhi, iga raali noqo, kulama sii socon karayo. Anigaa hor istaago waxaanan ku yidhi, anigu dhakhtar ayaan ahay, waanan garanayaa, anagana na sii daa, godkana tag oo waxaa samaysaa, dhammaantayaba dhakhtar ayaan nahay, waanu daweyn karaynaa. Haddii aad daweysiin, iska socda ayuu nagu yidhi saaxiibkay oo meeshaasna i tusa. Meeshiina waa aan tusnay, sidii baanan kaga soo badbaadnay. Sheekadiina intaa ayay ku dhawaatay.